السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan meehan ka salaama ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan si gaar ah maanta aan tacsiyo ugu diraa dadkii ku dhinteen dagaalkii xaq darada ahaa oo lagu weeraray General Sheego gurigiisa waxaan ilaahay uga baryaynaa caafimaad degdeg ah kuwii ku dhaawacmeen waxa kaleente oo Soomaaliya meel kasta ay joogto ugu horeeya madaxweyne ku-xigeenka gobolka Banaadir dadka maamulaya dhammaantooda xaq darada oo maxaan dhahnaa General Sheego lagu xiray anagoo ka dhiidhihayno oo macnaha ka soo horjeedno in arrintaas si cadaalad waafaqsan wax looga qabto General Sheego kaliya waxa lagu haysta maanta waxay tahay reerku uu ka soo jeedo of course dad oo waxaan nahay nabad jecel aan qori qaadanin aan wax dilin wax dhicin wax xooggan haddii ay taas ay dambi ay tahay maanta waa tan anaka noolagu haysta haddii aan nahnay macnaha jireer weyne marka dad muslim ahaan nahay ilaahay ha laga cabsado xaqa ha la fiiriyo waddanka ha loo turo bini aadanka ha la xushmeeyo cadaaladda ha la isticmaalo ilaahay ha laga cabsado waxaan meeshaan aan maxaan dhahanaa aan ka cambaareehaynaa xaq darada oo sharci la'aanta ah oo lagu xiray General Sheego waxaan rabnaa in sida ugu dhaqsiga badan laga soo bixiyo xabsiga oo xuriyadiisa loo siiyo isaga oo loo ballan qaadaya ammaankiisa sababtana waxay tahay intii wax la isku soo habay wax aan suurtoobayn ama ummadaba ay aqbali karin isku soo toosiyo oo si macnaha cilmiyaysan loo dilo tan wax ka sii xun waana wax la fishtoogaya hadda sida ay runta tahay marka عدالة إلهي الأغيسي دولة عادلة إلهي حقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان ومدى الصومالية وسلامتهن بعض الصحافة كانوا وسلاميهن مركور وحمد تعسيين يا دتكي كوغيريودي iyo General Sheego oo ku dhaawacmeen dadkiisa weerarkii xaqdarada ahaa oo loo geystay hooygiisa ku yaala magaalada Muqdisho General Sheego waxa uu ahaa muwaadin soo halgamay dalka Soomaaliya xorriyadooda iyo shacabka Soomaaliyeed laakiin dhibaatadan sababta loo geystay waxa waaye dadku ka soo jeedo oo qoomiyadda jireer weyne oo lagu haayo waxyaabo midabta koor ah oo sanooyin badan soo socday marka waxaan u sheegaynaa adduunka waxaan u sheegaynaa haddaan nahay jaaliyadda Soomaali Bantu ee dalka Canada inaan cambaaraynayno waxyaabaha foosha xun oo wala dadkeena lagu sameeyo gaar ahaan General Sheego waxaan u sheegaynaa madaxweynaha Xasan Sheekh iyo Xamza ra'iisul wasaarihiisa in nimankaas si degdeg ah xorriyadooda loo siiyo in si ammaan ah dalkooda ugu noolaan sidoo kale waxaan u sheegaynaa international community-ga inay indhaha ku hayaan xaqdarrada dadka jireer weyn lagu hayo dalka Soomaaliya marka ugu horeysa maaha marka ugu dambeysa noqon doonto waxaan ka codsanaynaa adduunka inay indhaha ku hayaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh الحين waxaan salaamay ummadda Soomaaliyeed dhamaan meel meesha ay ku nool yihiin waxaan ugu mahadcelinaa dadka Soomaaliyeed oo ka gubtay ma artay dhibaatada loo geystay General Sheego Axmed Cali waxaan aad ugu dhiirigelinayaa walaalaha qoomiyadda jireer weyne oo maanta mudaaharaad sameynayaan mudaaharaadka inay adkeeyaan ilaa iyo General Sheego xorriyadiisa oo ka helayo sababtoo waxa waaye generalku looma marin qaab dawladeed looma marin waxa loogu weeraray qaab qabiileed waxa lagu weeraray qaab muuriyaanimo qof aan loo jirin macnaha waraaqad oo ma artay nin yaqaan rulkii iyo regulationka yaqaano oo ma artay maxkamad laga wicin in gurigiisa habeenimo asagii oolaadiisa iyo ma artay xaaskiisa wiilkiisa lagu dilo iyo afar kaleenta ay dilaan inta kale ay dhaawacaan wax anaga naqabata ma aha waxaan u sheegaa ummadda Soomaaliyeed inay macnaha qof walba dulmiga diidan dulmiga inay ka dhiidiyaan waxaan aad ugu sii sheegayaa dadka oo ka dhashay generalka hadda ka bacdi waxa way sawir waa dhamaaday dawladdu waxa ay sameynayso ma dhaxi kara hataa dawlad kuwa ma artay dawlad isku sheeg waxa ay sameynayaan markay waa dawlad isku sheeg dawlad oo maanta aanan ma artay matalaynin oo halaba qabiil kali leh dawlad ah oo macnaha hal qabiil kali dawlad ah ma aan dawlad loo san yahay ma aan oo loo simin yahay ma aan marka waxaan u sheegnaa qoomiyadda jireer weyne ninkii macnaha sinaantooda ay diidaan inay simintihiin macnaha sareentiisa in la diido waa xaqiiq waa xaq marka waxaan u farayaa dadka oo muwaadiniinta mudaaharaadka sameynayaan mudaaharaadka in la sii wado ilaa iyo xorriyadda iyo wanaagga oo dalka aan ku leenahay iyo xishmadda iyo xurmadda inaan ka helno
مظاهرات كذا وضو وحن أوباقي أمة الصومالية كوا ما أرتي ما أنت ظلمة نعيب تطولطو وما أرتي كذا اشتيخ وميد جرلوينه يو كوا كلانته ولا له إن الصوماليات إن كفالة خادان رجع يدمر كماش اللي هو لاينا حبضها الله أذيك سنة عرفت لي أنا كفالة خادم رد بده صومالي مارت بانتو يومار جرلوينه يومار ولا له دقل يمرفله كميرة ولا لينا هبيه دتك wanaagsan oo maartay oo khayrka jecel kuma yara waxaan u digaynay inay ka dhiidiyaan qof walba oo maartay oo Soomaaliya amarkan waa ku dhici karaa waan ku dhaca dawlad oo macna wanaag sameynayso maaha marsaa darteeda waxaan aad ugu adkeynaya dadka Soomaaliyeed oo dulmiga diidan waxaan ugu mahad celinayaa dhalinyarada maartay maanta oo media ka shaqeeyo oo runta soo wariyo banaanka keeno dhibaatooyinka loo geysto ayagoo dadku xun oo ka ilmeynayo برسال ضفتها كعن ليه سومالي بانتو كعن جرير وين كعن دقل يمرف لكعن دمكي والا طاضي دتكي والا دعي دتكي واحد يقصر جينا نختينا أنا جنرال شيغو وحو نويا جنرال شيغو وحو نويا أنا ما عرتي ورايه هنا شيغو هذه لا تعبطو بعد دقيس وحواي ماله هلب دور وعلى داي ما عرتي وناك الدولة وناك ما دعيكم بعد دقيس باستل إبريستا نبتكم العنيسين ساس وحو شيغيا وبرت هلا خاطو سمت هلا خاطو ها أركان الدب خلص نقاله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون مركوهر وحان تعسي ودرايا دتكي وغيريودي دقال ويركي لو خادي جنرال شيو عيدن كيسا كدبنا وحان عمبارينا فالكاس وعشنما دها دتكي وكعي إيضا وح شرعي لو مرن مركا جنرال شيغو waxa loo kaliyo loo weerayo ma ahan in general maxa as ahaa jiray ama xilkiya laga qaaday oo ciidan ma haysan karo ee waxa loo sababta loo weerayo waxay tahay general shigo inaas yaanin jirin ah sida aan ka war hayran waxa la diidan yahay qof jirin inaas magaalada muqdisho hub ku dhaawato marka taas mid aan aqbali karna ma ahan ilaa general shigo hadii la dhahay general horaas ahaa oo hadda ciidanka kama mid aha kuwii oo sidiisoo kale oo maamulkii farmaajo xilka laga qaaday maanta garaadaalkood waa loo soo badceliyay marka maxay tahay sababta general shigo oo osiga kaligiis meesha loogu dhaafay taasi waxay cadeynaysaa inay meesha ay cadaalad darro ka muuqato maxaa yeelay waxaan ognahay general shigo inaas qoladan argagixisada inaas kula dagaalay gobolka shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose ilaa iyo hiiraan marka nin noocaas oo dagaalada soo galay kaliga maxaa ku dhilaa gurigaada joog oo ciidan hayo ku wardiyeynin taas waxa waaye maxaa ku dhilaa danka maleeniyaan uu dilo waaye taasna ma aha mid aan aqbali karno haddaan nahay bees jirir weyne waana ka dhiidhinaynaa mana fadhiisan doono mana nasa doono ilaa generaalka laga soo deeyo mana ahan generaalka haddii lasoo deeyo generaalka lasoo deeyo macnaha waa qanacsannahay maxaa yeelay generaalka amnigiisa waxaa u baahan yahay ciidan sugo oo asiga maxaan ku dhihi lahaa oo si gaar ammaankiisa u sugo si lamida ciidankiisana in loo rejistaray oo garaadayaalkii ama sida generaalkii oo fashal dawladii farmaajo qaadad ahay dib loogu soo celiyo maxaa yeelay meesha waxaa lagu joogaa awood qaybsi maadaama awood qaybsi lagu joogo janaashagu waxaas ay keliya generaalkii bes jirir weyne jagadiina waa laga qaaday qof kaloo jirir weynen ma loo magacaabin marka ma aha mida aqbali karno in la dhaho shaliyaas janaal ah oo nin isku sheegay inaas yahay booliiska gobolka banaadir afhayeenkooda inaas dhaho kabtan ama dhamme taas waxaa aqbali karna maan ninkan generaalka ah 10 sano ka hor adigoo oo ciyaal weer ah generaalaas ahaa marka maanta ma dhihi kartid mana aqbali karno inaad dhahdid generaal ma ahane dhammaas ahaa marka insha allah waxaa kaloo rabaa inaan booriyo dadka mudaaharadayo hays dhiibina gobonnimo inaan ku noolaano haddaan rabno waa inaan u dhimanaa ma ahna hal maalin aan mudaaharaadnay waa nolol soo xabadii baa soo noqonay ilaa iyo generaalka iyo xuriyadiisa iyo ciidankiisa ay dib xamar ugu soo laabtaan marnaba yaa las dhiibin waxaan ku dhihi lahaa halo dhinto annakan insha allah haddaan nahay qurbajoogta reer kanada ama qurbajoogta soo jooreer weyn ee caalamka daafeeda ku nool waa idinla garab istaaganahay wixii dhaqaale ah caalamka iyo international communitygana waxaan caddeynaynaa ama meel walba aan rabnaa inaan geyno in lacagaha dowladda soomaaliya luu fangareeyo ama la siiyo inaa dadka luu dulmiyo marka insha allah mara warka inaan kusii dheeraado waxaan rajeynaa dhammaan bees jirirweyn meel walba joogaan inay kacaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون وحان تعسي يتيراين لأمدرنا دمان
walaalaha ku waxyeeloobay waxyaabihii ka dhacay falkii foolxumada ahaa oo si argagixisnimada ah loogu beegsaday walaalkeena generaal sheego axmed cali oo runtii si gardara ah gurigiisa loogu weeraray 2 maalmin ka hor waxaan arrintaas ugu tacsiidinayna dhammaan jareerweyne meel caalamka ay ka joogaan waa fal naxdin leh waa fal argagixisnimo ah waa fal runtii aan marnaba aan filaynin qof muwaadin ah inuu ku dhex qabto waddankiisa ama gurigiisa asigoo dhex joogo maxaa yeelay sidaan ognahay generaalka runtii soomaalida awaal badan ayuu ku leeyahay oo waxay u ahayd inay u abaalgudaan maadaama dhibaatooyin jiray iyo argagixisadii oo la dagaalamay oo dhibaato badan iyo tuulooyin badan deegaano badan uu xureeyey oo ka dulqaaday cadowgii saarnaa waxa ayaan dara ah in abaalkiisa laga dhigo in maanta gurigiisa lagu weeraro kadibna xabsi la geeyo ma ahayn wuxuu istaahilay waa qofkii mudnaa in taale loo sameeyo isla markaasna la maamuuso bilo sharafeedna la siiyo laakiin haddii aan Soomaali nahay ma naqaano sida qofka wanaagga sameeyay abaalkiisa loo gudo laakiin wax kastoo sameeyay ilaahay dartiisu u sameeyay waddankiisa iyo dadkiisa uu sameeyay abaalkiisana ilaahu ku leeyahay laakiin ma aha maxaa la jiray dadka Soomaalida ah khaasatan Soomaalida dhan ma aha dadka dulmiga wado sida ay ugu abaalgudeen ama waxyaabaha ay u sameeyeen ma aha wuxuu asiga u sugayay mis anaga aan sugaynin aadaan ugu xumahay waxa ku dhacay generaalka iyo dhammaan wiilashii meeshaas oo ku waxyeeloobay oo dhaawacyada oo ka soo gaaray ayagoo difaacayo marka haddii aan nahay qowmiyadda jareerweyne meel caalamka aan ka joogno runtii August 19 waxayna ahayd maalin madow maalin aanan weligeena iloobeynin maxaa yeelay muqdisho 12 saacadood ama 15 saacadood in ku dhow in qof gurigiisa ku jiro yani weer lagu soo qaado lagu burburiyo waa dareemi kartaa ma aha qof la rabay yani noloshiisa in la soo qabto ama asoon oo nool in lagu gaaro meesha waxaa la rabay asigoo meesha ku burburay dhismaha dhexdiisa in loogu tago laakiin qadartii ila iyo maxaa la dhihi jiray wuxuu ku badbaaday aqoontiisa iyo farsamadiisa naftiisana wax badan ka dhimnaa inuu sii noolaado marka haddii aan nahay jareerweyne fariintan waxayna tusinaysaa yani isku duubni waxayna tusinaysaa inaan fadhiga ka kacno waxayna tusinaysaa inaan yani ka tashano aayaheena nagama roona gobolada kale oo dhowrka calan oo samaystay jareer waa cidda keliya aanan wili calan sax ah aan samaysanin intaas waxaan raadinaynay Soomaalinimo iyo walaaltinimo iyo yani isku duubni laakiin mar haddii ay sidaa noqotay waxaa laga maarmaan ah laga bilaabo maalintii falkaas oo dhacay in aan noqonay dad ka baxsan Soomaalinimada maadaama anaga oo nologu dagaalamay sida qof aan Soomaali ahayn oo kale waxaan isku dayaynaa in aan samaysano calan gooni ah iyo deegaano gooni ah sidaan horey baan u lahayn oo laakiin dulmiga loogu qaatay marka dhammaan waxaan u soo jeedinaa jareerweyne meel caalamka oo ka joogo inuu isku dubno arrintan 10 badan oo يعني ونقطة سيدا جنرالك أو sacrifice ugu sameeyay oo naftiisa oo noogu horay ina anagana naftadeen iyo maalkeena aan u horno maxay yeelay shalay markuu dagaalamay ama la weeraray ma aha wax asiga uu sameeyay falo asiga uu sameeyay ma ahan waxa lagu haystay maxaa jareer u noqotay maxaa jareer yani hormuud ugu noqotay maxaa yani diyaar ugu tahay inaad jareer difaacdid ama aad ugu dagaalantid marka anaga maadaama anaga madaxeen oo sidaas uu ku noqday waxaa aad nagu ah inaan guryaheena aan jifno haddii aan dalka joogno ama haddii aan dibadiisa joogno wax kasta oo anaga aan awood u leenahay oo ka bilaabato naftadeena iyo maalkeena iyo aqoonteena intaba waxaan diyaar u nahay in aan walaalkeena aan kusoo xurayno cadowga gacantiisa ku jirana aan kasoo saarno hadduu ilaah yiraahdo haddiisan dhicinna ma aha wax si istaagayo dagaalkan iyo maxaa la dhihi jiray jihaadkan aan ku jirno marabina hadalka aan sii wado runtii waxa caloosheeda ka buuxo ma kuma soo koobi kara halkan laakiin dadka shuhadada ah oo ku waxyeeloobay dhaawacaas iyo waxaas meesha ka dhacay waxa u rajaynayaa kuwii dhintay inuu ilaahay naxariis janno siiyo kuwii dhaawacmay inuu ilaahay caafimaad oo siiyo generaalkana ilaahay cadowga gacantiisa inuu ilaahay ka soo saaro cadow aan dhihi karaa dowlad meesha ma taal dowladnimo waa la yaqaanaa systemkeeda iyo nidaamkeeda dowlad saas uma dhaqanto laakiin waa gacan cadow cadowgaas inuu ilaahay ka soo saaro ayaan rajaynaa waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu dhacsano
waqtiga la roogo xisaabtii un xisaabtamayni dhammaati marka hadda may roogne annaga ragayna iyo bilcaantayna caruurtayna kulliba dagaalgalno marka maysinka baaqee macnaha annaga haddaayba may ahayna dad isku dhow la dhajiriya ahayni dagaal hadduuna galno gacantayna yooma gemayna laakiin hadda isku dhowtiya taaganta isku dhowtiya ninidhay nankia buuka hortaka jijidi beri adamakii la daayo waliunu sogegsini waliunu so sawarni hadda sawarka ninka dhammaadi haddiiyo alif dhahan unina baqiya dhahaan xisaabta isluwadooyno haddiiyo generaal sheego sodeya iyo sondeyna dhatiyo buun hulayna dareerta haddiiyo rabab hadilam haddii generaal sheego juglusiyo unu tamonga jugsiyaana meel iyo rogam un ugsugno meel koona kasta koonigiyo ku jiran unu kasoyna hadday xishmilay ahayti walinu shubunka ahayni manoo tawar badanyan manoo taatika badanyan manoo teknika badanyan manoo qoro badanyan manoo siyaasa badanyan hadda laakiin xishoodkii noo dhammaadi wal unu nin heri maletinka damboytiti generaal sheego waa ahayti tiin iyo waa burburiyen ogsugna isla shaqeeyoyno ogsugna isla degagno ogsugna meel walba meeliyaan dunyadun ku noolyan unina ku noolna hadda iyo hadda way generaal sheego dila ruqsi way laakiin isagna kullugun ina dhammaadasan ogaada kullugun dhammaadasan been ma ee halkii jareer ay meel isu roogo ilkan dhabo inin malaytan walun ilan gabayna an dunyada meel walba meeli jareer ku roogtana is ogna marka haddee doobadanaanna may sheenase fulaynimo unu doogayna ma badanya basoy dooguba inta ka agyabo mar damba la warama uma jiro macnaha mayla filadaasana aarsasho inauna aarsadoyna ogaada salaamu calaykum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن سلامة دمان أمة الصوماليات ميلا الماشي يكونوا لين وحن تحسيه أدري دمان ضدك ماشي كوكيري ودي وكل عيان موريانتا سو ويرتي دولة مداي إلى الدولة سيستم بيخطاي موريانتا سو ويرتي ضدك سو ويرتي جنرالك أي كدي لين أفر عنق أو استاف كما أنا استاف كيس عيان أو دولتنا كترسن عيد الدولة أين وح أي مرت أي لاين أو قدشتي قومي جيران الله يرحمه كودا وعمل مارتي إلهي حقيه وحن ليه أمة الصوماليات مال على ماشي الجوان ظلمك أنت ديدن إن كدي ديان سنة هاتنا يدي ديان وكان وحن أبرجنا دتك أو وضع مظاهراتك إلي أتكين مظاهراتك دتك دبد جواني إن معناها وراله هذا مظاهراتك وضع إني كنت غيران دتك أن حسلوني إني سن هيلن إلا الجنرال أي كسو صاران إني سن حسلوني أو هيلن waxaa meesha jooga international community ay arkayaan wax walba wixii ay sameynayaan war hanila dilo markii 2 iyo 5 ay dilaan xuriyada waa loo dhawaanaa 6 iyo 7 haday dilaan waa loo dhawaanaa dhig baa laga keenayaa waxaan u digaya dadkan Soomaaliyeed oo maarta qoomiyad jirar weyn oo ku nool dibida qurba joogta waxaan u digayaa qofkii dhinto ilmihiisa in loo maartay kafaalo qaado macnaa caruurtiisa kursiimadiisa famil walba inay qof kafaalo qaadaan dadkan lama aamuso oo dhintaan maxaa yeelay xuriyad ayaa loo dhimanayay hadda wixii ka dambeeyay generaalka hadda wixii ka dambeeyay generaalka gadaashiisa wax kale noo dhimin ma lahan marka saas darteed waxaan leeyahay dadkan oo sararka fuulaan inanka maxaan ku haysanaa anaga nafta maxaa noo haysaa waa dhibaatoona buushishka ka deganahay dadka ayaga degan maarta saarta degan ganacsiga wato wax wato ayaga dhibaysay banaanbaxaasa dhibaa rabshada ayaa dhigay in la dagaaltamo ayaa dhibaysay aniga wax naga dhumaay maalin ma haysanay nafna ma haysanay waa noo dulaysanaya afadaali in nafta la gooyo ayaa wanaagsan nafta inay raac ku baxdo wariya hala dagaaltamo hala qaato birtana maartay halagu shubo wiilashana maartay miraha loo gado دولة ماشي بتاع موريان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته